السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتو عنا ونكسن صاحبة قيبها بدن الجنال كي كحرن كسر دوادا مانتي وربحنا مالا بدن تعبنا سرّا إنا إذا لو بدأجو وحن ربا إن أجوه الرئيسي ومرك أجوه الرئيسو إن هرالي جلين كبحيو عشرة دين التحنها أها أن قادنيني دوش كأها أن وده برنيني مركي أن لا وده برنيني معنيه ده وحيت هاي luqadu anigu ma dhalan markaan diyaarinaya cashir oo aan idin wadaagayo it means aniga laftirkeyga waxbaan baranaya qofkana markuu qof wax sii baro waa marka kulama oo wax sii barto mar walbana waa ku celceliya waan wada baranaynaa inta ku cusub wadamadan Deutschland la isku yiraahdo ma taqaanay sida Jarmalka ama Swisska ama Austria ma taqaanay ku xiran janaalkeyga luqad maaha wax cilmi ah luqadu qofka haduu qaldo marka dambe saaxiib uu keenaya waliga laba shay ka fogaada istaxyi inaad xishootid oo ka xishootid luqada inaad ku hadashid ama jumlad dhistid ka fogo mar walba isku day luqada inaad adiga iska aad u practice iska jumlad aad u dhisatid waad baranaysaa luqada waxaan rabaa inaan cudurdaar ka bixiyo sababta ay u baaqatay cashiradeen labadan bari aan idin la wadaagay waa marka koobaad waxyaabaha aan rabo inaan idin la wadaago marka labaad waxaan rabaa inaan tacsi u diro ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxay wariyihii qiimaha badnaa ee xamar lagu dilay habeenka xalay ahaa ilaahay ha u naxariisto rag badan oo ma taqaanay halyeeye ah oo dalka iyo dadkaba si daacad ugu shaqeynayo been ayaa lagu dilay ilaahay u naxariisto wariyaha qiimaha badan agaasimihii waliba barnaamijyadii gundhiga ee dabagalka kooxda Arsenal aad ugu warrama jiray oo baabuurkiisa qarax loogu xiray oo Muqdisho ku dhintay waxaan leenahay ilaahay u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo dadka uu ka tagayna samari iimaan Allah ka siiyo ayaan leenahay annagana bacdigiisna ma fidneeyo taas kadib waxaan rabaa sidoo kale halkan inaan ugu gudbiyo hambalyo maalinta macallimiinta maanta oo ku beegan maalinta macalinka macallimiinteedii sidoo kale ardadeedii aniga qudheeda waxaan ka mid ahay macallimiinta ardadii aan muddada wax soo wada baranaynay kuwa aniga aan wax soo barayay dhammaan oo daafaha dunideeda ku kala faafsan inaan dhaho maanta oo ku aadan maalinta munaasabada macalinka hambalyo insha Allah ta'ala ilaahay hanaga dhigo waxbarashadu iyo ma taqaanay teaching ama learning is not something ma taqaanay wax dhamaanay ma aha mar walba qof walba meel walba iyo makaan walba uu joogo in dadaalkiisa uu ka wado ayaan rabaa aan u soo noqdo marka sababtii aan u joojiyay isbuucan almost I think 1 week danta malenaya aanan bixin cashiradii doojka sababtii aan u joojiyay yaan rabaa inaan la wadaago Europe marka aad ku nooshahay wadankeena beecadiisa aad bay u kala duwan tahay waxa xaqiiq ah beeca aad u kala duwan inay tahay tusaale ayaan idin siinayaa wadanka markii la joogo qofka familka ah مثلا oo kaleete zawjadaada markii ay dhalayso ama familka wax jiraan waxa jirta wax la yiraahdo familia basuuqin badan yani booqasho dhanka familka far badan waxa laga yaabaa gabadha inaysan adiga ku baahan waxa laga yaabaa ilmaha iyo iyaga inay isku filan yihiin waxa laga yaabaa ma taqaana aabuhu 80% inuusan pressure ka saarneen marka la eego internal solution xalinta arrimaha gudaha ee qoyska laakiin markii aad qurbaha joogtid qaasatan wadamadan Yurubta iyo Mareykanka iyo meelahan samaha waxaan dhigi karaa wadamada qaliishka qaliishka xoogaa waxa moodaa dhaqankii Soomaalida inuu ku dambeeyo oo ma taqaanay familiyadu isbooqdaan oo qof haduu xanuunsado qofka la booqanayo qof la joogaayo la iska daba wareega yani galaay kultuurigi Soomaali ee lahayd kaleete in qaliijku uu jiro laakiin markii Europe la yimaado absolutely different life way nolol ka duwan nolosha dalkeena taalay qaliijka taalay aad bay uga duwan tahay waxaan soo wadaa sheekada aan soo wado aan raba inaan idin la wadaaga marka waxay tahay oo aan u joojiyay daraasadii
aabaha markuu Yurub joogo saddex waxyaaboodba waa ku raacayaan oo waxa tahay culeys ku haysta waay koow ilmaha jooga Yurub markaad ilmo Yurub keysatid ilmihii waxay ka rabaan shaqo gooni ah waayo waxa ku socdo installation ama programming ama mataqaanaa ajal lagu soo shubayo iskuulkii ama kindergartenkii ama hortigii meelihii ilmaha lagu hayay guriga markay imaadaan you need to format waxa u baahan tahay inaad tirtirtid isla markaana ajal cusub saartid ma aha taa oo kaliya waxa kale oo sidoo kale ay ka rabaan in daraasadoodii maadiga ahaa ee luqadda wadankan ama maadooyinka iskuulka dhiganayaan waaba wataanba ma u baahno you don't need to worry laakiin in daraasadii diiniga ahayd aad bal ku samaysid dabagal oo mataqaanaa cashiro u dirtid cashiro ka dhageysatid inta oo kaliya ma ahan hadii family aad tahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaskaaga ama qoyskaaga wax soo kordhaan waraamin wax soo kordhaan macnaha gabadhii baa dhashay ama gabadhii baa xanuunsatay ma jirto hooyo eedo abti habaryar abaayo walaal saaxiib wax ku daba ordaya ma jirto so you need to solve your problems alone alleine sie müssen finden Lösung was ist genau dein Problem in deiner Familie marka waxa u baahan tahay inaad xal u heshid oo aad dhammaan waxaan aan soo sheegayo dhan adiga ka aaba ahaan ka mas'uul ahaan aad xalisid tii caruurtii cashirkoodii ka warqabkoodii daraasadoodii diiniga ahayd aad ku taxnaatid oo sidii aad ugu bixisistid mid kale ee soo korortay ah مثلا oo kale xaaskii ama way xanuunsatay ama ilmay dhashay oo ma taqaanaa inaad daba gashid oo ma taqaanaa tagtid tawqiiciya signatures ama unterschrift waxa la yiraahdo laga baahnanaya aad daba socotid caawimaad ee adiga kaaga baahan tahay hooyo iyo aaba dul joogay ma jirto مثلا oo kale way dhalaysaa waa inaad la joogtaa yani culeysyo aad u fara badan ayaa jiraya markii la joogo Yurubta waxaasna waxa looga baxsan karaa waxay tahay geduld ee dhahan Dutchka ama af Jarmalka yani patience in qofku uu dulqaad iyo karti uu muujiyo isla markaana uu ku xisaabtamo marxaladan adag ma taqaana especially when someone is new when human is new marka qofku uu cusub yahay environment-gan uu ku cusub yahay ilaa in la qabsato wuxuu u baahan yahay marka inuu ka talaabsado marxaladahaas adag marka waxa dhacday cashirkii aan u joojiyay يعني waxaan isku keeni waayay cashirka diyaarintii iyo ma sha Allah nimco nagu soo korortay oo qoyska waxa ku soo korortay gabar amaal aan u bixiyay oo ii dhalatay xaaskay Caasha Ismaan Cabdi iyo anaga 18 November 2021 maalnimo khamiis ah saacadana ay ku bogneed 14 ama labadii duhurnimo 55 daqiiqo ayaa Austria dalkan Austria magaalada Linz waxa noogu dhalatay gabar oo ku soo siyaaday reerka halkaasina waxa dabaaldeg ama xaflad ku dhigtay gabdhihii aniga aan dhalay oo hore u joogay ciyaartana waxay ku dhamaatay ay taagan yihiin bareejo maadaama reerka hadda saddex ay noqdeen alxamdulillah rabbil alamin ilaahay noo siyaadiyo nimcada awlaad waxay kamid tahay nimcada ilaahay bixiyo kuwa ahaysana Allah siiyo subhanahu wa ta'ala kuwa haystana Allah u barakeeyo oo Allah ka dhigo awlaad baarid oo toosan marka ciyaartaas bareejada ku dhamaatay mataqaanaa ayaan ku mashquulsanaa oo igu kaliftay ii diiday ama ii saamixi weeday inaan diyaariyo cashir oo aan u fadhiisto laakiin insha Allah ta'ala hadda alxamdulillah rabbil alamin gabadhii aad adeerka ama abtiga ama walaalaha aad aheedeen way caafimaad qabtaa xaaska way caafimaad qabtaa alles okay alles good ma taqaanaa waxaan rajaynayaa marka casaradeena inaan dib ugu soo noqono oo luqadda Jarmalka aan wada barano oo aan wada daraasayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo oo aan mahad gaar ah aan u celiyo saaxiibadeeda social media طبعا YouTube kan inay ku jiraan laga yaabaa inta boqolaalka kor u dhaafaysa ee Facebook
snapchat-ka igu soo dirtay hambalyada ama walaal ha ahaado ama asxaab ha ahaato ama mataqaanay ardaydii macallimiinta ha ahaato ama kuwa aan wax soo wada baran ahaato ama khaliij ha ahaato ama Soomaaliya ha ahaato dhammaan way farbadeen asxaabta hambalyada ii soo dirtay ee dhalashada gabadheeda waad ku mahadsantihiin aad baan idinkaga mahad celinayaa meel walba iyo goob walba aad joogtaana goobtiyay waxaan idin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinka raali noqdo waan ku mahadsantiin waan idinka qabaa raali gelinteeda dhalashada gabadheeda amal yari amal Ismaan Maxamed Maxamuud amal Indos waxaan leeyahay amal wanaagsan aabe mid la timaado dunida Allah ka dhigo ayaan leeyahay yadana anfacdana dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda ayaan leeyahay saaxiibadana waan uga mahad celinayaa mar walba iyo goor walba iyo waqti walbaba sida wacan ay qalbiga wanaagsan ay ugu soo hambalyeeyeen reerka noogu soo duceeyeen idinkana mid taa lamid ayaan idin rajaynaynaa marka muhiimadda marka waxay tahay aan raba inaan idin la wadaago markii aad tahay aabe Yurub ah joogtid waxa ku saaran mas'uuliyad ka weyntii markii la joogo Soomaaliya aad joogtid aad iyo aad waxa ku sii dheer ma aha oo kaliya taa dadka qaar Afrika jooga ama wadamada qaliijka jooga waxay aaminsan yihiin Yurub hadii la tago waa khalaas lama shaqeynaa ceera la cunaya qofka iyo shakhsiyadiisa iyo mataqana personality-giisa ayay ku xirantahay laakiin mar walba aabaha iyo qoyska waxa sumcadooda iyo sharaftooda iyo wanaagooda ay ku jirtaa inay ama wax bartaan ama ay shaqeystaan waxyaabaha wadamadan ay ku fiican yihiin waxa kamid ah oo mataqana aad ii soo jiitay oo xaqiiqatan maanta amal hadii igu dhalan lahayd Soomaaliya laga yaabay sariirta ay seexanayso iyo qarashka iyo dhalmada iyo intaas inay ku bixi lahayd iyo dawadaas iyo magaciisigaas iyo tacaalintaas oo ilaa hadda isbitaalka ku jirto laga yaabay inay ku bixi lahayd yani more than 5000 US dollars or more than laakiin wadamadan waxay ku fiican tahay caafimaadku waa free as long as you have farsiq room oo aad haysatid kaarkaagi mataqaana health kaarkaaga ama insurance-kaagi everything is free for you marka waan uga mahad celinaynaa kulay wadamadan aan qaxootiga u nahay caafimaadka freega na siiyay nolosha freega na siiyay oo ku mahadsiin ayagana wax sidoo kale mahad guud iyo mahadda koobaad iskale Allah subhanahu wa ta'ala oo noo saqiro oo noo qasbay gaaladan ayaa mahad iskale marka maanta waxaan u soo galay ma ahayn inaan idin la wadaago cashir ma bixinin maanta waxaan idin la soo galay inaan u tacsiyino walaalkeen dhintay Allah u naxariisto wariyaha la dilay oo aan dhahno Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabrigiisa u nuuriyo qabrigiisa qabri janna Allah uga dhigo qofkii qof islaana dila mataqaana asaa dhib qaba faraska maalinta yoom alqiyaama qofkaas asaa faras soo fuula haysta oo mataqaana gacan ka xaq daran ee dishay mana ahan markii ugu horeysay oo aan maqlaay kiisaskan Allah u naxariistay aabihii ayaa kamid ah dadkii mataqaana asigoo iska socdo oo laamiga maray halkaas bistoolad madaxa looga dhuftay oo la dilay Ilaahay u naxariisto adeeradii asxaab fara badan wariyaal fara badan oo aqaano dhacdadii igu xanuunka badneed oo hadda marka wariyaal la dilay maqlab waxa kamid ah Maxamed Ibrahim Gaabo asxaabteedii Royal TV طبعا way garanaysaan aan soo wada shaqeynay Maxamed Ibrahim Gaabo wuxuu ahaa wariye ka tirsan TV-ga muqaahiyaha Royal TV waan wada shaqeyn jirnay wuxuu ka mid ahaa raggii aad igu dhiirigelin jiray inaan ku dhiirado studio in la fadhiisto wariyaasha way kala duwan yihiin aniga inta badan waxaan wariye ku ahaa reporter laakiin ma ahayn nin studio fadhiyo oo warka akhriyo waxa dhacday Allah u naxariistay saaxiibkay inuu igu dhiirigelin jiray weliba igu kaftami jiray steelkeeda leedahay studio inaan fadhiisto warka akhristo isku day ana waa markay content camera lagu soo aadiyo warka si walba u diyaariyo waa gafgafi jiray aad buu ii train gareyn jiray nin isaacido ahaa studio-ha igu soo dhaweeyay Royal TV ee magaalada Muqdisho wada shaqeyn jirnoo ahaa wuu baxay warbaahintii ka baxay wuxuu aaday Uganda jaamacad buu soo dhameeyay asoo jaamiciya oo raba dhinacna inuu macallin ka noqdo dhinacna saxaafadii uu ka wado yaa la cunay Arsenal baunte Ilaahay u naxariisto kaligiis maaha wariyaasha haldoorada saraakiisha dhaqaatiirta la cunay ee dalka ka baxay lama soo koobi karo Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaantood inta qarax lagu dilay intii mataqaanay aana loo dilay inta si kale loo dilay
dhamaantood inta dhimatay Allah u naxariisto anagana waa ka daba tageynay khaatumada Allah noo soobiyo khaatumada Allah nagu dilo taasu waa taas tan kaleete inaan u mahad celiyo saaxiibada ii soo hambaliyay midda saddexaad inaan idin sheego sababtii aan uga baaqday daraasadii intaas aan u soo galay inaan idila wadaago idinkagana mahad celiyo mar walba sida daraasada ama cashirka ula socotaan sidaad ii dhiirigelisaan sidaad mar walba ma taqaanay encouragement-ga ama wax ka bedelka aad igu soo wargelisaan mar walbana waa idin furo tahay WhatsApp-kayga janaalka haddaad tagtid meesha about-ka WhatsApp-kayga waad arkaysaa igu soo dir wixii fariin ama tala ama tusaale WhatsApp-kayga waan qadarinayaa wixii aad u baahan tahay inaan ka bedelno cashirka ama inaan ku soo kordhino u baahan tahay sidoo kale igu soo dir dhamaantiin meel walba aad joogtaan waxaan idinkaga tagayaa waa walaalkiin wariye macallin Indos oo idile maalinta macallinkayga Maxamed Xasan Wehliye macallinkayga Tolban macallimiinta Ismaaciil Sheekh Khaliif macallimiinta soo wada shaqeynay dhamaantiin waxaan idin leeyahay maalinta macallimiinta munaasabadana waxaan idin leeyahay farxad meel walba aad joogtaan ku jooga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.